السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركeenii barashada af soomaaliga waxaynu ku guda jirnaa casharka waxyaalaha dhaqanka soomaaliyeed dhaqankii soomaaliga waay dhaqan soomaaliga waa dhaqan aad u qurux badan oo dad soomaaliyeed ay leeyihiin oo u gaar ah adduunyada dad la midna ma jira waxaa halkaas ku yaala macalinkii iyo waddankeenii soomaaliya calankiisii dhaqanka hidaha soomaaliyeed wuxuu leeyahay wax meesha ku sawiran ujeeda hadda waa aqal soomaali waa guriga ay seexdaan dadka aqal soomaaliya lah babisaa lahaa babiska waa markii aad kululaato waa laisku qaboojiyaa kuleelaha marwaxadda booskiisa u dhigmaa waran kan barkinna waa la dhahaa dadka qaar lahjad ku hadlina barshinay yiraahdaan intaan koonfurta soomaaliya oga marka barkin iyo barshin waa qofka marka baadiyaha uu dhabarka dhigto ku seexdo halkan waxaa ku yaala gabar soomaaliyeed oo dhaankii u socota oo ratigii hoggaanka haysa xoolihii idihiina ay garab socdaan maasha allah si u xijaaban tahay geela oo dhul bannaan daaqaya runtii oo quruci uu cagaaran yahay waqti doog ah lagu jiro gabar soomaaliyeed oo derin falkinaysa derinta waa la falkiyaa ama waa la sida xariga loo soo ho kalaa loo soo haa iyadana soo hitaan maaha laakiin waa la falkin haan iyo daboolkeeda masallaha hoosta ka yaala haan iyo haruubkeed macnaha haantii yareed ayaa meeshan taalla ama dhiil yar waayo dhiisha ayaa lagu magacaabaa dhiisha markay yar tahay haanna waa la dhahaa dhiilna waa la dhahaa buro kan wuxuu eg yahay buro waaye ameel iyo dhakal intaba waa la dhahaa ama dhinaca kale hadduu noqdo sawirka si kale loo fiiriya wuxuu noqon karaa mooyaha laakiin mooyaha kal buu haystaa kan laakiin waa buro gobollada qaar waxa la yidhaha buraa la lahaa caanahii geela ku cabaan midna ameel baa la dhakalna waa la lahaa saddexdaas eray kule intaan u aqaano dhardhaar waa burjikada baadiyaha dhardhaarta waa burjikada baadiyaha sida kuwa muuqato saddex dhagax la dhigay qoryihii ayaa dabka saaran cuntadii ayaa kasoo degaysa halkan waxaa ku yaala waxaa waye gambar waa lagu fadhiistaa kursigoo kale wiil yar oo garaangar buu wataa dacaskiisii dabagaabkiisa ugu jiro haamaha wiil soomaaliyeed haamuhu raritaan waay halkan waxaa ku yaala waa hangool oo geedaha jeqda ah ido daaqdoona idihii oo daaq u socda saabka waxaa la yidhahdaa haanta gudaha loo geshaa kabacdi lagu xiraa caano geela lisaayo ama la maalayo labada sawir waxaa kaaga muuqda geela nooca loo lisaayo jilibka kor loo qaadaa marka caano geela lisaa xero waa meesha xoolaha lagu xaray geedayna ka samaysantay geeda lasoo aruuriyey ooda inta lasu keeno geedo quraca geedahan waa geedo quraca haan iyo haruubkeed daran bay ka samaysan tahay dabcan salli waa derin ayaa laga sameeyey salliga waa midka lagu tukada ama lagu seexdo salli kii salaada kelimaaka waa lagu seexdaa marka la rabo lagu tukada xaaqin dhulkaa lagu xaaqaa caw ayaa laga sameeyey xero ari ayaa lagu soo xareeyey xerada ari ayaa lagu soo xareeyey xeradii haddaan arkayno waa xoolihii loo diyaariyey waa kuwaas wixii intaas kadib marka waxaa nagala soo xiriiraysaa barteena internetka youtube channelkeena iyo facebookgeena intaan casharkan cashar la mid